Masha Allah, Soomaalida ku nool Minnesota oo dharbaaxsho ku dhufatay Biden iyo qoladiisa edebtarada badan. Masha Allah, I'm so proud of you, Soomaalida ku nool Minnesota. Sababtuna waa fududahay. Sababtu waxaa weeye Biden wuxuu taageerayaa genocide-ka, baabi'inta, tirtiridda dadka Falastiin lagu hayo ee Gaza. Qaabka keliya loo tusi karo ama ay isku bedelayaan waxa weeye in la tuso inuusan raynaynin in Trump uu kusoo baxayo, Trumpna kulligood dharbaaxsho uu ku dhufanayo haddii aysan isbedelin. Biden iyo administrationkiisa ayaa hadeertan waxaad moodaa inay soo dabcinayaan hadaladooda ay ku hadli jireen ayagoo Kamala Harris soo diray shalay mise daraad, oo markaasna markii ugu horreysay ay afkeeda ka tiraahday ceasefire ama xabad joojin. inkastoo hadalka aysan adkeen, balse waxaa soo baxay warar kale oo ka soo baxay xafiiskeeda oo oranaya Kamala Harris way ka soo horjeedaa waxa uu sameynayo. Biden waa ay ka soo horjeedaa waxa lagu wada Falastiiniinta. Sababta ay Kamala Harris saas u oranaysana wax kale ma aha. waxaa weeye sababtu Biden waa oday, waa uu gaboobay, siyaasad dambe uma dhinna. Balse Kamala Harris waxay doonaysaa inay wax noqoto future-ka. saa darteed waxaa la ogsoon yahay Democratka dadka u vote garaya in intooda badan ay kasoo horjeedaan dagaalka iyo baabi'inta iyo tirtirinta lagu hayo dadka Gaza ku nool. saa darteed ayay Kamala Harris waxay doonaysaa inay tiraahdo aniga mas-uul kama ahayn, kumana jirin dadkii taageerayay dagaaladaas, balse waa too late. waayo 6 bilood ayaa 5 bilood ilaa 6 bilood ayaa weerar aanan dhicin qarankan, aanan dhicin boqolkii sano u dambeysay, weerar la mid ah. xitaa waxaa lagu leeyahay dagaalkii labaad ee adduunka, Dresden markuu Maraykanka uu ku garaacayay madaafiicda isagoo Jarmalkii quwad badnaa la dagaalamayay, sida uu u garaacay magaalada Dresden oo ah magaalo taariikhda adduunka gashay, si ka xun ayay u garaaceen Gaza. waa waxaanan la arkin oo la maqlin. qaabka loo garaacay meeshaas yariista ah oo ay ku nool yihiin 2 milyan oo shakhsi, ayagoo lagu yiraahdo waqooyiga aada koonfur baanu garaacaynaa, koonfur aada waqooyigaanu garaacaynaa, galbeed aada barigaanu garaacaynaa, bariga aada galbeed baanu garaacaynaa. maanta Rafah la isugu geeyey magaaladii Gaza inteedii kalena dhulkaa la dhigay. haddana waxaa loo sii socdaa Rafah. balse waxaa soo baxaysa in Bibi Netanyahu in dowladdiisa uu dilaac soo galay, in dad dowladdiisa ku jiray ay hadeertaan ka soo horjeesanayaan qaabka uu rabo inuu u garaaco, isagoo la sheegay ninka ciidanka xukuma inuu diiday inuu garaaca uu doonayo inuu ku sameeyo Netanyahu. Rafah uu ka diiday hadeertaan sida ay sheekadu marayso, laakiin ma aha sheeko si turuusa wargeysyada dhan loogu soo qoray, balse waxay ku tusaysaa adduunka oo dhan iyo indhihiisa inay u wada jeedaan waxa meeshaas ka dhacay, in Maraykanka iyo reer galbeedka oo dhan hadday lahaayeen wax sharaf ah ama wax sabab lagu dhagaysto in ay taas dhammaatay, in loo arko dad isku wada raacay in ay ku taageeraan Israel in ay tirtirto Falastiiniinta. taas oo adduunka oo dhan u ka soo horjeedo. xitaa waxaa lagu leeyahay Hindiya
oo dadka hindugu aad muslimka u necab yahay waxaa soo baxday in aysan dad badan ay kasoo horjeedsanayaan dagaalkan markii uu sii socdaba waayo qof walba oo bil-aadana oo wadnale way u jeedaan naxariis darrada dadkaas sida naxariis darrada ah ee loo baabi'inayo subxaan allah marka aan kusoo laabto sheekadoodii hore waxaan doonayay inaa u diro hambalyo soomaalida ku nool Minnesota inay uncommitted sida Michigan uncommitted waxaa weeye inay tusaan Donald Trumpna ma rabno adigana kuma rabno haddaad isbedelina ku vote gareen meena hadiidaan isbedelina xisbigiina waa laga saarayaa haddii xisbigooda laga saarana waxaa soo socda Donald Trump oo 80,000 miyaa la yiri mise waa 8,000 oo shakhsiyood oo lasoo tababaray oo ilaha dowladda dhan hal mar qabsanaya markuu madaxweyne cusub qabsada Mareykanka wuxuu keensadaa dadkii uu u dhiibi lahaa boosaska sarsare oo dhan halkaas oo la sheegayo in ay tababaran yihiin waxaa intaas yiri ninka la yiraahdo Bannon oo ah isagana mid kale oo dooni ma inaan ka sheego balse waad iska garan kartaan waa nin Trump wata waa nin aad muslimka u nacab isagana balse waxaa laga yaabaa xitaa kuwaas inay xoogaa yar ay at least xataa haddaysan naxariista muslimiinta ka naxariisaneen in danaha Mareykanka intay fiiriyaan ay mar hore joojin lahaayeen dagaalkan lagu wado Falastiiniinta maanta halkaas ayaanu ku ekeysanaynaa laakiinse insha allah inta uu socdo dagaalkan channelkan wuxuu isku dayayaa in siyaasadda hoose iyo siyaasadda qarsoon iyo waxa aysan doonayn inaad ogaataan in aan idin soo baaro oo idinkugu soo gudbiyo subscribe-ka ii taabo like igu dar halkaas ayaanu ka sheekeysanaynaa have a nice day assalaamu calaykum